أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaanu halkan idinku yeedhnay inaanu warbixin kooban oo guud idinka siino xaaladda dalka ee cudurka safmarka ee coronavirus. sidaad ogtihiin shantii bilood ee ugu dambeysay waxaa dowladaha iyo shucuubta caalamku la dirirayeen ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka coronavirus oo ah cudur khatar ah oo dhib badan oo qofka uu ku dhaco ka weerara habdhiska neefsashada. cudurkaas oo ilaa hadda Soomaali meelo badan oo caalamka joogta u dhinteen waxaa si la mid ah sida dowladaha kale caalamka dowladda Soomaaliya isla markii cudurku faafitaanka bilowday in dadkeeda ay uga digto khatarta xanuunka waxayna qaaday tallaabooyinka ay ka midka yihiin in la joojiyo wax kasta oo Soomaaliya keeni kara cudurka wajigii koowaad sida diyaaradihii rakaabka waday ee ka imaanayay wadamada xanuunku saameeyay. waxaa la sameeyay guddi qaran oo u xil saaran ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka oo uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane xasan cali khayre. waxay dowladdu bilowday wacyigelin ballaaran oo ay si joogto ah uga qayb qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha, wasiirka caafimaadka, wasiirada kala duwan ee xukuumadda iyo qaybaha kala duwan iyo waxgarad Soomaaliyeed fara badan iyo warbaahinta. waqti hore waxay dowladdu xidhay iskuuladii iyo jaamacadihii dalka si loo badbaadiyo ardada oo ah mustaqbalka Soomaaliyeed. waxaa la yareeyay tirada shaqaalaha dowladda ee xafiisyada isugu imaanayay. waxaa la joojiyay shirarkii iyo kulamadii waaweynaa ee la isugu imaan jiray. sidoo kalena waxaa bulshada la siiyey dhammaan fariimihii iyo talooyinkii ka hortagga xanuunka iyo hadduu qofka asiibo sida uu uga diyaar garoobi karo ama ula dagaalami karo. iyadoo talooyinkaas iyo kuwo kale oo fara badan dowladdu qaaday tallaabooyinkaas iyo kuwo kale oo fara badan haddana cudurku dalka waa soo gaadhay. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka oo maalin kasta bixisa briefing la xidhiidha xaaladda xanuunka iyo inta qof ee uu asiibay dalka gudihiisa. ilaa hadda waxaa isbitaalada yimid oo la caddeeyey inay cudurka uu haleelay 237 qof waxaana u dhintay 8 ka mid ah. laakiin waxaanu aaminsanahay in dad kale oo ay dhici karto in xanuunku haleelay aanay weli soo gaadhin ama imaanin goobaha loogu talagalay in lagu baadho ama lagu karantiino. sidoo kale waxay wasaaraddu caddaysay in cudurku ku faafayo dalka ku dhex jiro oo bulshada ku dhex faafayo. sidaas awgeed wasaaradda warfaafinta oo u xil saaran wacyigelinta bulshada waxay wariyeyaasha iyo warbaahinta xorta ah ugu yeedhay inay iyaga laftooda iyo bulshada Soomaaliyeed ay wararka gaarsiiyaanba uga warbixiso xaaladda dalka ugana digto khatarta cudurka si aanu dalkeena iyo dadkeena dhibaato weyn ugu geysan. waxaanu idinku yeernay inaad nala qaadaan fariimaha wacyigelinta ee wasaaradda iyo dowladdu doonayso inay bulshada gaarsiiso oo ay ka mid yihiin in dadka Soomaaliyeed lagula taliyo si aynu cudurku aanu u noqonin sidaan hore u sheegay dhibaato noo geysto oo dadkeena oo dhan ku dhex faafa inay intii karaankooda ay ka fursadaan inay meelaha lagu badan yahay tagaan oo guryahooda joogaan. haddii aanay duruuftu u saamaxayn inuu guriga joogana inuu bulshada kaluu la macaamilayo distance u jirsado, distancega la sheegay ee la wada yaqaano uu jirsado ama masaafo aanu cudurku ka soo gaarayn inuu neeftiisu ka soo gaarayn. inuu dadka ka ilaaliyo waxyaalaha cudurka uu ugu gudbin karo ee salaantu ka mid tahay ee hindhisadu ka mid tahay ee qufacu ka mid yahay marka uu bulshada dhex joogo. inuu mask xidho, faraha xidho,
isla markaana markasta ku dadaalo oo wax taabto inuu farihiisa dhaqo ama ka ilaaliyo inuu taabto afkiisa iyo sankiisa iyo indhihiisa. in haddii uu qof xanuunsan arko uu soo ribood gareeyo oo soo sheego si dowladdu ugu timaado u caawiso. in haddii uu qof xanuunsan la kulmo uu ka dheeraado ilaa inta laga ogaanayo xaaladda uu xanuunsan yahay waxa ay tahay. in haddii uu arko qof dhintay aanay dadku iyagu duugin ee ay adeegsadaan hay-adaha dowladda ee loo diyaariyey inay qofka aan la ogeyn xanuunkiisa ama la ogyahay inuu coronavirus u dhintay ay duugaan oo dowladdu ay dad u diyaarisay. inaanu tacsida raacin oo sidii dhaqanka inoo ahaan jirtay qofka xanuunkaa u dhintay aanay dadku raacin, dad badani aanay raacin ama cidiba aanay raacine dowladda lagu wareejiyo. soona ribood gareeyaan haddii ay arkaan. xanuunkan sida la ogyahay daawo ma leh, laakiin wuxuu leeyahay ka hortagiisuna intaynu sheegnay wey. waa inaad naftaadana ka dhowrto, bulshadaadana iyo qoyskaagana ka dhowrto intii karaankaaga. dowlad ahaan waanu ognahay in xanuunkan iyo qaabka uu u fido oo runtii qaab khatara ah oo la sheegay dhammaan xanuunadu qaabkay u fidaan ee taabashada iyo neefsashada iyo in kale oo badan oo inuu miiskan joogi karo saacado badan igu sugi karo. haddii qol la galo oo qolkaa qofkaasi ku hindhiso 8 saacadood waqti ku dhow sida dhakhaatiirtu sheegeen ku sugi karo qofkii kale soo gelayay. khataro badan muusaasa buu leeyahay xanuunkani. wuxuu ka horjeedaa dhaqankeenna wanaagsan ee isu naxariisashada leh ee booqashada leh ee dadka Soomaaliyeed dhaqanka u ah. haddii qof xanuunsado in la booqdo oo la caawiyo oo quraan lagu akhriyo oo loo dhawaado oo loo naxariisto ayuu ka horjeedaa. intaas ka sokow haddana waxaa jira waxyaalo marmarka qaarkood khuraafaad ah oo bulshada aad ka dhex maqlayso oo ay ka mid yihiin cudurkan innaka looguma talagelin, dadka islaamka looguma talagelin, iyadoo culimada iyo cid waliba caddaynayso dhakhaatiirtu in bini aadanku marka cudur ay tahay xaaladiisa jidhkiisu isku mid yahay, gaal iyo muslimba. qaar kale waxay cabsi ka qabaan karatiinka, ayay phobia ka qabaan shacabkeena. waxay u qaataan sidii aidiskii iyo qaaxadii iyo markii oo Soomaalidu waxoogaa shakiya ka qabtay. laakiin kan wuu ka duwan yahay. kan cudur kula noolaanaya maaha. waa cudur muddo yaroo kooban aad qoyskaaga iyo ehladaada iyo ummadda Soomaaliyeed ka badbaadi karto isla markiina ka caafimaadayso. maaha cudur weligii kula noolaanaya maaha sidii aidiskii oo kale maaha. marka muddada yar inaad wacdiga iyo talooyinka dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladda qaadato inaad dadka Soomaaliyeed ku wacyigelisaan, idinka laftigiinuna ku wacyigashanaataan weeye ujeeddadaanu idinku yeelno. isla markaana bulshadeenna uga digtaan. annagu halkan waxaanu ka samaynay wacyigelin ahaan xafiis u gaara oo ururiya wixii warbixina, maadaama aanu annagu markaanu dowladda wariyaasheeda iyo wariyaasha kale ee warbaahinta gaarka loo leeyahay ee aan runtii wada shaqaynta leenahay markaan kaashano waxaanu nahay dadka wartabiye ugu ballaadhan ee jooga Soomaaliya. marka sidaas awgeed xafiis baanu halkan ka furnay oo haddaad xataa xoga aragtaan nala soo wadaagi kartaan ilaa gobollada dalka wakiiladiina jooga iyo kuwa xamar jooga intaba. marka sidii aan hore u sheegay ujeedada kulankani waxa weeye marka horeysa inaad dalkiina iyo xaaladda uu ku sugan yahay ogaataan, bulshada idin dhageysatana gaarsiisaan. mar labaadkana inaad wacyigelinta aanu wadno nala qaadaan si ballaaran. waad aragteen telefishinada iyo warbaahinta adduunku qaar baa 100% ka dhigay warbaahintoodii ama wartabintoodii iyo fariimahoodii xanuunka coronavirus inay ummadooda uga digaan. waxaynu taagannahay xilli dadka Soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo ka hortag iyo wacyigelin la galno xanuunkani sidii uu dadkeena saameynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd, inta uu ku yeeshana si degdeg ah ay uga soo kaban lahayd.
inaynu kulligeen isla qaado waad ogtihiin dalkeenu muddo dheer oo uu ku jiray dhibaatooyin dagaal sokeeye iyo burbur waxaa la joogay sanadka 2020 sanad wanaagsan oo dawladda ay u qorshaysnaayeen wax badan inay qabato dhalinyarada Soomaaliyeed shaqooyin helaan markii laga cafiyay deyntii oo dalkan maalgashi inuu yimaado ay ahayd wax qabad balaaran dawladdu ay qorsheynaysay laakiin nasiib daro inako adduunkana kala mid ah xanuunkani runtii waxyaalihii socday qaar badan oo kamid ah ayuu joojiyay marka intaasaan idinku yeernay aad iyo aad baa u mahadsantihiin